السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن ميل كستو أدونك أدك جوكتان الكني وكالسن تي في حرنتيسا وكل هاي مقالة ميابليس يولي بسيمبو هذا با ما أنتو كله مركز أركتان النجي علي ويساق فرديناه قف كسته وهذا داونا يوح حسوسنا يا كفتنكي سياسة ده بل هذا با علي أن ويدينه بل ما أنت وحو إنه هيو يميلها وسوتكي علي ما أنت بحاش عكويسة ويه أن waxaan ka bilaabi doonaa yaasinow shirka igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho sababtii qaadka loo joojiyey dhowr ayaamood iyo waxa qaadka loo sii daayay markii dambe labadaba ila waa siyaasad wixii siyaasadda markaan guda gallo shirka igaad xubnaha dawladaha ka ah igaad waa inta East Africa ama bariga Africa sax iyagaba muqayiliin horta وقات ومن وقات كبحي يميلي اللي يبكيني دولته كترسنا يوغندا يمرك لو يراهدو إثيوبيا iyo Kenya iyo Soomaaliya ayaa igad xubno ka soo tiqaylisama inta qaylisay way marka qaadkii ayaa dawladdu wax u joojisay markii hore in maadaama shirka igad uu meesha la keenayo in aanu zaxmad iyo buuq diyaaradahaas iyo alaabtaas aan keenin sidaas daraadeed qaadka la joojiyo marka maxay yihiin markii qaadka la joojiyay labadii maalmood ugu horeysay ee qaadka la joojiyay dadku aad buu qayliyeen mudaharaadyo sameeyeen waxay dhaqaalaha naga soo gali jiray ciyaal baan ku korin jirnay ganacsatadii busaaradda xoog la ka dhacday kuwa Kenya waa qayliyeen beeralaydu oo waxay yiraahdeen millions of dollars noo iman jiray ayaa naga lus garoobay marka halka la isla marayo ayaa dadkii laba bari kadib ay si fiican u fakreen waxay dhaanuu qaadkii inay naga joojiyo xaq bay ahayd oo fiicneedba labadii cisho way noo hagaagtay qoysaska way soo noqdeen waxay ogaadeen inay wax kala qabsan karaan oo meeshii qaadka ay gelin karaan waqti fiican bay isu heleen faraaqo leh dabeetana waxay aad bay ugu qushuuceen waxaana ku ammaaneen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tallaabadaas qaadka joojintiisa dad hadlay waxay yiraahdeen afartii sanadood ee madaxweyne Xasan Sheekh uu xukunka ama talada wadanka hayay sheegii ugu horeeyay uu qabto ee taariikhda u gali doona waqaadka uu joojiyay kaas noqonaysa labada bari laba cisho uu qaadka joojiyay ayaa taariikhda u galaysa halka markii la isla marayo igad baatimi shirki baa xamar uu qabtay qodobada igad baa marka madaxweynaha la hadashay madaxweynaha Soomaaliya si ku dhici karta hadii madaxda igad aan nahay oo bariga Afrika inaan qaylin anagoo muqdisho joogna libaalka sii dabayaan silsila ya waxa way laga sii annaga waa xitaa naxanibtay kii Kenya hadlay xasan nala socota inta milyan ee aad naga lumisay buu kii Ethiopia hadlay war dadka aad ugu soo doonaysaa buu yidhi dadku markay qaylaan baaba iga nasanayaan maaha in oromada iyo tigray ay biliba isu soo deysay baalka la furo next day ayaa madaxweynihii dowladda federaalka ee loo han weynaa ee lagu amaanay qaadka joojintiisu subax wuxuu yiri hal qaylo dadku qaadka cunaan waliba saddex cisho ka baaqatay nimankan inuu raali galin Ethiopia iyo Kenya waa in jabanaha la cunaa subax jabanaya subaxna mid la cuno galka dabana mid si lacagtii maalintii hore u baaqatay saddexdii bari ay u soo noqoto ila hadda jabanihi iyo kii galka dabana lagu jira heshiisyada kamid ahaayeen madaxdii igad markii ay qayleen ayaa dabeetana loo ciyaaray ciyaar markii qaadka dhameysteen waxa ka dhacday ciyaarahan Soomaaliya oo taqaano anu ma garanay meesha magaca ka keeneen ciyaarta niikada anu waxaan u aqaanaa shakhsiyan marka laga hadlayo inay tahay ciyaar aad u anshaxun oo asluubta akhlaaqda islaamka iyo Soomaalida waa waafaqsaneen waxa iyaduna ceebta labaad ee meesha ku jirta ay tahay in madaxweynaha dowladda federaalku uu gabdhaheena yaryara u ogolaado inay ku horniikiyaan odayaal 80 jir ah oo ka mid yahay Museveni oo ka mid yahay Kenyaati oo ka mid yahay isaguna ninka arrimaha dibadda u qabsan Ethiopia marka gabdhaheeni oo la bahdalayo ayaa sawirkan soo socda aan ugu talagalay in inta damiirka Soomaalida ku jirto ee ka damqanaysa aan ka xasuusiyo daawasho wanaagsan hablaheeni oo odayaashii waaweynaa ee East Africa ahaa u nikanaya
وولي عسوي wali casmatay جاي dhaqanka waaba dhinac martay tani marka rekordkay ku jirtaa waaya waan ka socon doonaa watan doorashooyin ay soo socdaan waddanka Soomaaliya dadkii madaxweynaha soo sharaxaya ama ha helaan ama ha waayaan lacag fara badan bay ku bixinayaan oo deposit oo aan soo noqonayn $20,000 nin walba idaacad buu ka hadlayaa oo ka sideynaya uu doonayaa inuu qofku waxa uu qabanayo in uu sheego madaxweyne xasan sheekh waa ka xanaaqay nimankan ka hadlaya TV-da qaarkood kuwa private-ka oo leh haddii ay ku riyahay waan sharaxaynaa dadweynaha waxaasaan u samayn doonaa feature marka uu hadlay wuxuu dadka sharaxay waxaan la yaabanahay ayaan darada jirta nin kasta oo hadlaya wuxuu marka hore dhaliil wuxuu caaya ama dhaliilaya ama maagaya dawladda jirta iyo wax qabadkeedii dambe ma qaban buu leeyahay dawladdii iyo Soomaalinimadii ayuu dhulka dhigaya waxa kale oo uu meel ka dhac ku sameynaya de marka madaxweynihii jiray iyo systemkii jiray waxay ahayd oo taladu ku fiican tahay in ninka sharaxaya waxa uu qabanayo uu ka hadlo laakiin aanu dawladda faragelin marka uu warsaanadii soo bandhigo madaxweyne xasan sheekh oo arinta ka hadlaya daawasho wanaagsan nasiib darro baryahan magaalada iyo dalka Soomaaliya iyo meelo badan ummadda Soomaaliya dhexdeeda hadaaq badan oo siyaasadeed ayaa ka yeeray halka mid ee nasiib darrada aan ku tilmaamayo waxay tahay in qofka siyaasiga ee doonaya siyaasadda inuu istaago in ay siyaasadii ka gashay hogaankii ay ka gashay mas'uuliyadda in loo dhiibo oo ku rabo inuu dalka caayo inuu dawladnimada ceebeeyo inuu maxaan ku raraa ummadda Soomaaliyeed magaceeda hoos u dhigo inuu ka raadinayo siyaasad iyo maxaan ku raraa hogaan iyo darajo inuu ka raado waa nasiib darro taas abad fansama waayahay hadalkaas waa hadalkii xasan uu ku leeyahay qofka sharaxaya ayuu ka hadlin dawladda isagoo ha iska hadlo wuxuu qabanayo haddaba xasan oo aan weli madaxweyne noqon ayaan adiga dadweynaha soo bandhigi doonaa oo isagu aan ka hadleen waxa uu qaban doonee dawladda hilfaa u qaadaya dawladdii markaa jirtay oo weliba dawladdii baa waxay u kala dhuumanaysaa dawladaha shisheeyaha Ethiopia Kenya oo waxay garab ku haysaa dad ajaaniba oo aan wadanka u dhalan oo aan muwaadiniin ahayn doo xasan ninka ka hadlaya in dadka gaalada ama dadka ajaanibka loo kala dhawaado waa xasan sheekh aan adiga dadweynaha u soo bandhigo xasan oo tii uu shalay ka digayay isagoo sameynayay dhiirigelinta sii kala qaybsanaanta dalka iyo dadka sida dib u abaabinta kooxaha hubaysan iyo hogaamiye kooxeedyo cusub dhiirigelinta maamul goboleedyo gacan ku samays ah oo aan kalsooni ka haysan shacabka saddex madaxda dawladda ku-meelgaarka oo door bidaysa inay shisheeyaha u garabsadaan aayaka talinta Soomaaliya wallahi tanaaba ugu daran yasiru madaxweynuhu labada jeer ku musaxsan yahay si wala jiifiyaan banaan waa hadda dhinaca joogta ku xiran hadba dhinaca joogta marka imika wixii ka dambeeya dadka sharaxaya ana oo fasaxaya dawladda waa dhaliili karaan way ka hadli karaan waxa iyagu hankooda waxa shacabku qaban karayaan sida xasan buu soo qabtay iyana waa la mid anoon hebel oran isku wadaha mareen waa barnaamijka kaftanka siyaasadda ayaa fasaxay waaya weli murashaxiinta baan ku jirnaa murashaxiintii hawl weyn boo taala niyo markay arkeen in dadku isku badan yihiin oo chance uu yar yahay ayaa imika dhinaca diinta la iska maray dhinaca diinta si la iska maray waxa la iska maray murashaxiintu way ducaysanayaan imika duco kaliya ducaysanayaan odayaashii iyo reerihii bay u tageen nin walba reer ka soo jeeday nin walba reerku wuxuu leeyahay ii duceeya in meesha Ilaahay madaxweyne iga dhigo ducadaas hadii ay kacdana hadii Ilaahay ku run yahay waxaan wax badan ma qabanaya marka waa kala saxiixanayaan interior ninka ministerka arrimaha gudaha odowa dawladda federaalka master odowa baa wuxuu tagay cadaado dabeetana masaajid buu tagay inuu horta wuxuu quraan saara quraan baa la saaro quraan saara si aanay ashabaab wax iga qaadin si aanay dawladda marna jagada iga qaadin bal hada quraan caynkaas akhriya oo Ilaahay halay duceeyo hal sawir isagoo masaajid ku jira cadaado oo quraanka lagu tufayo si uu jiladiisa u haysto daawasho wanaagsan يا والله دعي نكاس والله دعي iyadoo hadaba video
oo aaminta la hayo ayaa waxa loo duceynaya ambassadorkii Kenya ee Soomaaliya Ali America ninka lagu magacaabo baysna loo duceynaya Ali soo si bareer odaasha wuxuu yiri videogana duuba ducadan in Ilaahay maartay madaxweynaha dhigo hadhowna hawshin aan qabto odayaashii oo Ali America u duceynay in Ilaahay madaxweynaha ka dhigo iyo waad قرابة حفظ اللهم انت ما جوبتنا وحي خفت اللهم نعم الهي لك جوبتنا جوبنا بدي جوب اكسده جوب توفيق جوب نود قلب جوب نقول است الله اسكويمات كاسوما اسكويمات في وحده الشيء oo wax keenay oo farxad uu ka dhalato Allah ka dhigo farxadaasuna mid reegta oo lagu guuleysto Allah ka dhigo عليه وتعالى هذا كل كلام بقى له دعيه بقى امين دعاء waxaan ku ay xasuusiyasiino aan mar aan BBC u shaqeynay oo la diray Djibouti ayaa markii la dooranay 2000 kii Cabdiqaasim Saad Xasan madaxweynaha rag badan baa madaxweynada u tartamayay marka meeshii ay deganaayeen ee carta la oran jiray ayaa waxa jiray meel ay deganaayeen Cabdiqaasim iyo masaajid yar bay ku tukan jireen marka nin baa inta badan imaam u ahaa marka wuxuu ku ducayn jiray hadii jeer in Ilaahay madaxweyne u siiyo ama uu ka dhigo madaxweynaha Cabdiqaasim marka wali laga ma dhigin Ilaahay markii maalintii dambe ayaa ilaa qadarka Ilaahay Cabdiqaasim baa madaxweyne noqday dabeetana dhinac iska laalaadiyay haye ana marka Djibouti aan joogaa wuxuu Cabdiqaasim ma weyn inta ku ducaynay waxaan wax ku heshay ducadeedii iska beelidad hayga tagin meesh marka Cabdiqaasim baa ay wuxuu yiri inuu ninkan ducadiisu kacday hadaad ka tagtid armu ku hawaara habaarkiisu kaca marka dabeetana wuxuu ka dhigay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha diinta ninkaas mar qura lama ridin wuxuu la tagay madaxweyne Cabdiqaasim Saad Xasan dalalka Carabta iyo meelo badan oo safar u baxay ayaan kula kulmay lafteedu dabadaha isagoo wali ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha ducada وحشادك تكتب دير ما أنا مش ويدا أنا مش ويدا مركا دولة دن إمك صاصة iyo murashaxiintoodu iyana hawlaha ay ku guda jiraan inaguna wuu duceynaa hadanahay kaftanka siyaasadda in Ilaahay amiin amiin kulligiin idin kala garamayna kulligiin guuleysta amiin kismaayo tagna wariyo kismaayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa wuxuu soo saaray sharci dhinaca aroosida wuxuu yiri baabuurta aroosida is daba galaya lama ogola from now waa in laba baabuur aanay ka badan cid aroosanaysa laba kaliya أول بقولال بيهان جري ما حد يكره هدي هون كلا يدبر دقو باور تاي بدتو مرك أول صح على حرية صدق يا صدقها ودراته صدق ورني صدق واحد يستلم من جروه ما iyo wax bal laga yaabaa inaan baabuurta saarayno ay gurigiisa ka joogaan guriga laga soo qabto labadan arooskiina iyana waa inoo waxba ma sameeyayuna iyana waa jelwi waa xabsiga iyaguna mamnuuc qofku aroos haduu galayo baabuurka uu islaanta ku qaadanayo iyo hal gaari oo daba socda ka badan looma ogola hay'adaha amniguna ha qaateen arooska boqolka baabuur la isdaba gelinayo inaan la qaadan karin marka arooska imika wixii ka dambeeya kismaayo lagu dhigay laba baabuur buu noqonaya waxa arrinkaas soo dhaweeyay Yaasino oo ay dhinaca kale wanaag u sameynaysaa dadka danyarta qaar baan labada baabuurba ka badan kareen markii hore wala isku soo dib la soo noqdo marka imika sharciga ay u adeegsanayaan oo labadoodii baabuur bay soo daba dhigeen waxay leeyihiin Ilaahay baa bada Axmed Madoobe ka yeersiiyay laba baabuur waxay oranayaan marka warde 100 baabuur baan isdaba dhigi lahayn dawladda diidan raga waxba hayso fududay arrinta kale ajiibka kismaayo ka jirta waxa weeye waxa la soo saaray amar kale oo tilmaamayo dumarka nimanka al-shabaab ka tirsan ay qabaan ama marwooyinka al-shabaabka ee kismaayo ku dhaqan iyaga iyo carruurtoodaba in laga musaafiriyo wayna ragooda ka daba tagaan ma joogi karaan maxay tadalo sababtu ma garanaysaa nimankan al-shabaab la yiraahdo ninka ugu yar wuxuu qabaa 3 dumara saddex dumara every year wuxuu dhalaa 3 ciyaala haddaan mataanaba noqon dee magaaladu baa wada ilmo al-shabaab noqonaysa waqti badanaya al-shabaab oo dhalaysa maxaad u malayn magaaladu kula joogta moogta marka magaaladii Axmed Madoobe wuxuu arkay wada dhal al-shabaab marka 15 gaarana waa isqarxinta iyo bamkii hawli baa ku jira 15 sano bay sugayaan markii la adkeeyay nidaamka kismaayo dhinaca amniga oo al-shabaab iyo dad wax isqarxiyo oo ay meesha taagan yihiin ayaa waxa soo baxay ما تقول يا مغش حلو كسماي ما أنت
waa maqlaa laakiin ma cunina waa xalwad aad u fiican haye niyo xalwada imika waxaa laga sameeyaa bam xalwada laftigeedii xalwad kismaayo xalwad kismaayo imika lama cuno haye sababtoo ah bam baa lagu dhex qariyey nin wata baaf ayaa la qabtay ama tashti ama baaf ama sixniga dharka lagu dhaqo ayuu madaxa ku siday waa xalwada kismaayo xalwada hoosteeda 59 bam baa ku hoosteeda waa arrin cajaayib ah marka haddaad saxan xalwada meel ugu timaado ha ku dhiiranin inaad tiraahdo qayb ka gooso oo bam baa ku hoos jira cirka kula aadaya waxaa kaloo halis ku jira dadka safafka ugu jira inay iibsadaan xalwada kismaayo in iyaga oo ku guda jira hawshii in kii qarax uu yimaado markaa la qarxiyo marka iska jira xalwad kismaayo halis waxaan eegay madaxweynayaasha Soomaalida intii aan kismaayo eegay labada ugu dhaafka badan leh madaxweynayaasha waxa weeye xasan sheekh iyo madaxweynaha Puntland gaas Abdul Maxal gaas waxaan weydiiyay Yaasiin Suwidi to maxay labadaasi maxaad u maanaysaa adigu maskaxdaada maxay u dhoofiyaan waayo waxaan malanayaa dee waa midna federaalka buu haystaa midna dowlad goboleedyada si loo kala waaweyn yahay loo kala dhoofin labadii baan eegayo xasan sheekh wuxuu u dhoofa had iyo jeer inuu dhaqaale ka helo dowladaha shirarku ay ka socdaan marka marka qaarkood wuxuu tagaa shirka dalalka afka Faransiiska ku hadla Soomaaliya kuma jirto marka wuxuu isleeyahay shirkan marka laga baxo malaha xoogay baa la soo dhidibay Soomaaliya waa tan iska tacbaanka ah hal si 20 milyan waa shaxaad shirka dowladaha carabta ay ku qabanayaan khaliijka ayuu ka qayb galaa kuwa Shiinaha kuwa Jabaanka marka isagoo inuu marba dhoofo ayaa dan ugu jirta markasta oo mashruuc meel lagu qabanayo waxa soo haray Puntland problemka Puntland oo dhan hal waxa ka jira waxa weeye waxa xalliya madaxweynaha wax kasta haddii dhul la isku haysto Abdul Maxal Algaas waa inuu xalliyaa haddii arrimo kale oo dhaqaale la isku haysto waa inuu xalliyaa marka waxaan eegay Abdul Maxal Algaas waxa dhoofka ku kalifay dhoof jacaylka ma aha problemkii baa ka batay Puntland ilaan isagu baa dee hawshii saxiixaya marka markii uu tagaba 20 problem iyo 50 baa yaala meesha waa fakasha baweeyo marka waynu ka cararaa mar badda fakasha ka qaadso dhibaatooyinka ka jira waxa kamid ah mushahar aan la bixin 6 bilood oo kaliya marka de shaqaalihii baa xafiiska madaxweynaha ka soo buuxinaya marka madaxweynuhu waa inuu haday jeer Itoobiya tagaa xagga tagaa waa business ka dhiga mararka qaarkood oo fiirso marka dagaaladu ay jiraan gaalkacyo markii ay ka dhaceen markii al-shabaab talala dagaalamay inta madaxweynuhu uu maqlaa waddanka uu ka maqlaa wuu gooyay inada waxa kamid ah dhibaatooyinka uu ka cararayo waa saxii way ka mid tahay sidaan isagan waxaan weydiiyay waxa uu dhoof waayo dhoofka hada jeer aan u jeclaan guriga isaga joogo marka wuxuu yidhi waxaan nacabahay waxa la yiraahdo shir jirayd oo live Dubai hadda tagtid journalist baa ka hormanayo shir jirayd oo qabata wixiina diyaar ma aha anigu waxaan aad u jeclay buu yidhi inaan guriga iska joogo oo saqda dhexe 2 o'clock markay tahay 2 am shir jirayd oo degdega aan sameeyo editing ka maartay yarka dad duubaya marba in aan masaxno oo ku celino oo iska abaar moogta dadkii waa hurdaan laakiin kuwa Dubai joogay charmarkii hadaan tago de waa live hawl badan baa soo bixi karta moogta live gaasidiya way wuxuu hadda ka hor ayaa la weydiiyay imisa xildhibaan imisa wasiir ay oo dumar baa ku jira golahaaga wasiirada dumarka dabeetana wuxuu yidhi 8 dalmoodayo maxamed cabdilaahi oo beriga ahaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa hoos ila hadlay af Soomaali wuxuu yidhi madaxweyne laba ahaayeen marka marka khaladkaas diidaa buu inaan dhoofo marka Kismaayo Axmed Madoobe ayaan weydiiyay su'aasha isagana sababta uu dhoof waayo ninka haysta Baydhabo Sharif Xasan Sacuudiga iyo Dubai way yar gaaraan labadaas waa tagaa waxaan inta kale oo dhani haka la yareystaan way dhoofan adigu dhooftid maxaa ku wacan wuxuu nii Puntland haduu dhoofo idima qabsanayso Sinai haduu dhoofo Somaliland cid qabsan mayso Muqdisho haduu Xasan Sheekh dhoofo cid ma qabsan karto Sharif Xasan haduu dhoofo Baydhabo cid ma qabsan karto niyo Kismaayo baas waa la wada eeganayaayo intaan xamar ku maqanahay ayaaban ka baqa ka wareeraa haddaan sidaa diyaaradu furo qolo kala qabsanaysa ku kala la wareegayba kaabiga loo saaray markaan wuxuu yiri ma bixi karaba ajay diyaaradahan iyo waxan iyo dhoofka ma ogoli buu
arrinkaasna waa arrinkaa waa dhoofka madaxweynayaasha niyow heesaha horta ma isku fiicantiin yaasiin dhinaca fanka may heesaha anigu caliyo xabadba ma soo qabto laakiin waxaan u malaynayaa adigu laftigaagu gintaarada waa garaacda caliyo adoo dhowr jeer gintaar garaacayaan ku arkay kabanka ka ugu jeceshay waaye marmar waxaa jirta aad guriga si joogto keligaa heesaysa heesaha aan anigu jecelahay waa heeso aan hore loo qaadi jiray oo fanaaniin waaweyn ay qaadi jirtay oo riwaayadahooda aan garanayo oo ninkii sameeyey aan garanayo oo ka qaadaya aan garanayo ay inta badan hees baan ku xasuusanaya haddii aad garan kartid cidda qaada ama cidda samaysay labadaa mid waa inaad garataan dad badanna wayna daawanayaan ma og tahay curyaankaba cagalooma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraaraye ladan inay ku cimro qaataan caashaqa habaayicin يا سلام هي ama cidii qaas ii sheeg ama cidii samaysay sheeg waxaan maleeyahay xasan hada sabtar hadaan khaldanay iyo magool waa aad bad fiican tahay xasan gani baa sameeyay heesta xasan gani iminka hadaba toddobaadkan maxaa heesta igu kalifay waxa weeye imika waxa soo baxaya wadaadda leh heesta ay ka laxan fiican tahay wala ogoliyo laxanka laxan wanaagsan uu saaran yahay sida tanimkan ku qaadayo kale laxan wanaagsan iyo midho wanaagsan baad leedahay heesta diinta waa la ogoliyo ayaa sheekh ku leeyahay sheekh baba leeyahay aniga afkayga maaha aan ku gudbiyo adiga dadweynaha sheekh cali raage oo ka hadlaya in heesuhu ay bannaan yihiin awal waxaan ogaaniyadoo wadaadadu ay leeyihiin qaarkood heesta oo bila musiga qofku ku luqayn karaa laakiin musiga way waxa dhibki bal cali sida uu isna u arko sheekh cali raage daawasho wanaagsan waxaa wax aad loola yaabo ah maanta waaqiceennu meeshuu marayo wuxuu waaqiceennu marayaa in maskaxdeennii ay xiran tahay nin baa heesaya wuxuu leeyahay ma ogtahay curyaankaba cagalooma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa cararayee ladan inay ku cibro qaataan waxaa leeyahay mujrim waa fanaan mujrimah hadda kelimaadkuu ku hadlayaa waa xaq kelimaadkii baa la qurxiyey waa la macaaniyey laxan iyo darab macaan baa la saaray dhegtu ay u bogayso dadka laxanka macaan iyo muusiga macaan iyo codka macaan dhagahooda dadka u dhibayo waa dadka ixsaaska ka dhintay waxaan ku qoslaa imaamu alghazali markuu arrintaa ka hadlayo fii kitaabi ixyaa culuum uddiin hadalladiisa waxaa ka mid ah uu soo raray wuxuu leeyahay man lam yu'ahirhu alrabiicu wa azhaaruh qofka aysan saamayn guga iyo ubaxyadiisa waalcuudu wa awtaaruh iyo cuudka ama muusiga iyo laxankiisa fa huwa sayi'u lmisaaj maa lahu min cilaaj waa qof dabeecaddii ka dhimatay oon daawo lahayn wey qof dabeecaddii ka dhimatay waxba aan macaansanayn waa qof xalwad afka loo geliyey oo yidhi waa kharaar tahay qofka hadalka macaan iyo gabayga macaan iyo codka macaan iyo muusiga macaan qofka ay dhibayso waxaa laga yaabaa qofkaas inuu dhagaysto muxaadaro maxay odhanaysaa muxaadaradaas ولينا وقدرت تري قربا يصير في صح هذين لا تيرو ولا عس تم ولا عد بن لا ما حنا تم ويمنو ولدين دبيتنا السوشيال ميديا ودن waxa imka buuxiyay dad markii hore ka cabsi qabo isla arrimaha diinta armi dambi ka galaan ayaa imka bilaaway wala iswada ruuxaya marka meeshii aad taabatidba ma ogtahay curyaankaba cagalooma waayine caynka wax loo yidhi ayaa ka baxaysa barnaamijkeedii maanta yaasin inta ayaan kusoo koobi cali aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan tahay waa barnaamijkii la magac baxay kaftanka siyaasadda waxayna daadihinaya anigoo yaasiin ducaali waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh